ku soo dhowaada falanqayn iyo odoros la xiriirta filinka filo. falanqayntu waxay ku salaysan tahay qaybta 107, saadaalintana waxay ku salaysan tahay qaybtoo socota ee 108. maslax iyo gabadhiisa sumayo ayaa halkan fadhiyo. maslax wuxuu leeyahay, waan ogahay dadka dhibkan kuu geystay, haddaad ii sheegi waysid waxaan ballan kaaga qaaday inaan gaashi dhagalo. way soo celinaysaa, waxay leedahay aaba fadhiiso. runtiin sumayo aad bay ugu adkaystay marka inayna sheegin, laakiin waxay leedahay waan kuu sheegayaa aabo, laakiin hal codsi ha u sheegin hooyo. marka sumayo runtii cashirkii ku dhacay iyo dhibkii ku dhacay cashir fiican ayay ka qaadatay. awalba gorbaalay ahayd, laakiinse waxawaaye I'm 18 waxaa ka jira westernka ayay masalaysay, laakiin derbiga ayay soo taabatay. taas ayaa keenaysa marka runtii. marka sumayo waxay leedahay aabo, wixii aan kuu sheegay oo dhanbo waxba kama jiraan, inaba ha yaraatee waa been. wixii aan kuu sheego dhan waa been, ii sheegayso dhan waa been haa waa been waaye. marka wuxuu leeyahay yaa kuu sameeyey, way sheegaysaa. waxay leedahay baldoos waxaa igu sameeyey iyo dhibkaas ii geystay iyo master right. waxaan iiga dhaadhici gabadhaas inaan dilay, aanama ogeyn, aqoon uma lahayn dilka iyo dhimashada. waxay idhin dhiig hoos ayuu ugu dhacay, adiga sheekada ayay ugu sheekaynaysaa. laakiin sumayo ugu dambeyn ujeeddada ugu weyn waxaa waaye sumayo way caddaynaysaa raggii dhibka geystay oo dhan, iyo sheekadii ayay ugu sheekaynaysaa, siday guriga ugu tagtay, siday u raacday, in lagu dhuftay madaxa, lagu xiray meesha. marka ujeeddada haddaan u nimaadno waxaa waaye sumaya iyo aabaheed waxay go'aan gaarayaan, oo sumaya ay ogolaanaysaa inay siiso cinwaanka ama rugta laga helo baldoos iyo master right. cinwaanka ayay bixinaysaa, halka ay degan yihiin oo wuxuu dhan. runtii taasi waxay ku tusaysaa in filimkii waxoogaa uu soo gabagabooba haddii la helo cinwaankii ay deganaayeen. sumaya aabaheed maslaxna wuxuu ballan qaadayaa, markale wuxuu leeyahay waan dilayaa gacantan u arsay, laakiin waxay leedahay aaba jooji, sharcigan kama socoto meesha. marka laakiin waxay leedahay aabo, adrees haddaan ku siiye dacwey booliiskan u gey. sidoo kale waxay u sheegaysaa in sawirro laga qaaday oo wax kasta laga duubay, oo intu waxay dhan u sheegaysaa, u caddaynaysaa. laakiin qaybta ugu muhiimsan waxaa waaye waxayna tusaysaa in la hayo cinwaanka ama rugta ay ku nool yihiin master right iyo baldoos meesha ay ku nool yihiin in la hayo, oo sumaya aabaheed gacanta ay ka saartay. taasoo runtii markii booliiska loo geeyo u sahli doonto in ay raadiyaan ayna soo qabtaan labadaasi nin. marka waxaan rabnaa runtii inaan xalqada soo socoto ma noqon doontaa xalqadii lagu soo qaban lahaa ama booliiska uu ku raadin lahay master right iyo baldoos uu ku raadin lahay, ma noqon doontaa xalqada soo socoto. haddii la qabtose filimka soo gabagabo ma aha, mise waa weli filimka waxbaa kasii furan, oo qaybtaas runtii aan rabno inaan darasno saadaasha soo socoto. qodobka kale aan raba inaan ku soo qaato waxaa waaye tahlil maanta wuxuu soo booqanayaa manager haashim iyo kalkaaliyihiisii, wuuna tusayaa in uu dambi baarista ka socdo, oo taliyaha dambi baarista yahay, ama stationka haysto. wuxuuna la wareysanayaa wareysi dheer intuu ka shaqaynaya haashim halkan, shaqaalaha intiisa kaleento. runtii wareysi badan uu siinayaa. wuxuu leeyahay lacagtan marba meel u duulayso maxay tahay sababta. taaliil wuxuu leeyahay ma garanayo. runtiina waxa waaye wuxuu qaadanayaa marka report iyo magacyada dadka ka shaqeeyo magacyadooda halkan. marka taaliil waa baaritaankiisii ayuu bilaabay. taasna waa wejiga labaad
oo ku tusayso in ay bilaabanayso markan wixii ka dambeeyo xalqadan wixii ka dambeeyo raadintii nimankii dambiilayaasha ahay. hore waxaan usoo aragnay Sumaya oo aabeed adrees ka siisay, sida saadaashii ay tahay Maslax Sumaya aabaheed adreeska wuxuu u dhiibi doonaa oo sii doonaa booliiska. marka waa tallaabadii labaad oo ku tusayso in booliiska howshiisii uu bilowday. ujeednaa Shariif Halaak, Koronto, Baldoos iyo Master Right. kulankani maanta wuxuu daaran yahay ay iskugu yimideen in Shariif Halaak uu u sheego baabuurkii lagu fulinayay howlgalka Koronto iyo Shariif Halaak ay wateen in sawir laga qaaday oo booliiska uu raadinaya baabuurka, maadaama baabuurkaas marka uu lahaa Baldoos waxaa lagu codsanayaa baabuurkaasi in uu gado oo iska gado. Baldoos wuxuu leeyahay baabuurka aniga raqiis kuma gadaayo, baabuurka lacag buu igu fadhiyaa. waxaa leeyahay annaga badbaadadayna iyo waxaad kala doorataa iyo lacag. midda kale wuxuu leeyahay yaa kuu sheegay in baabuurka la raadinay. marka wuxuu leeyahay waxaa ii sheegay Jamaal. ma ogid miyaa in Jamaal seedigiis uu yahay taliye tahaliil, ninka dembiga baarayo. Baldoos iyo Master Right way isgacan qaadayaan, waxayna isku gacan qaada waxay leeyahay waa noo gashay iyo see kuu gashay. masalada waxaa dhahayo maamahdii Soomaali ee la yaqaanay seedi waa beer. wuxuu leeyahay meeshaan lama joogo wadankii, seedi waa beer wax la yidhaha ma jirto. Shariif Halaak ayaa u jawaabayo dembiile waa dembiile. markaas Baldoos ayaa waxaa dhahay nin seedigiis xiraya miyaa jiro. marka runtii taas ayaan rabnaa xog inaan saarno. runtii haddii nimankan lasoo qabto waxaan shaki ku jirin Jamaal in lasoo qabanayo. taliye tahliil waxay ku noqonaysaa laba daran mid ah, inuu howshiisa fushado uu noqdo qof straight ah oo seedi iyo wax lamid aan ka nixin, ama inuu yidhaaho seedi waaye. marka bal adiga maxay kula tahay? taliye tahliil muxuu u jilleeci doonaa dhinaca seedigiis, mise sharciga ayaa ku xugun sharciga ayuu mari doonaa? marka taasi runtii intaan ka fikirna saadaasha soo socoto. haddii Jamaal shirqool ku soo galo oo taliye tahliil oo hoos yimaado, taliye tahliil maxaa la gudboonaa doona? maxaa la gudboon inuu sharciga mariyo iyo inuu yidhaho seediga waayo xal u raadiyo? Jamaal walaashiisne sidee ula dhaqmi doontaa odageeda taliye tahliil, maadaama walaalkeed uu ku jiro kiiska lugta la soo galay? waxaan filaya waa taas, waa inaan sii saadaalino, waa qaybaha dambe ee filinka saan filayo. waxaan hubaa in taliye tahliil iyo Jamaal ay iska hor imaan doonaan. bar marka saadaali taliye tahliil sidoo la dhaqmi doonaa, Jamaal walaashiisne odageeda maadaama waajibkiisa uu gudanaa maxay ka dhihi doontaa arrintaasi? qodobkaasna bal aan saadaalino oo qof waliba basaadaashaada keen. hooye ardayo maasha allah si nabad ayay ku soo noqotay, waa la soo dhoweynayaa. runtii waxay naga mudan tahay soo dhoweyn hooyo ardayo. aanu soo dhoweyno, qaybna aan ka qaadano dhoweynta hooyo.
hooyo soo dhawo hooyo arrin soo dhawo hooyo nooshahay hooyo